waxaa laga yaabaa inaadan weli maqlin waddan lagu magacaabo Suriname ama aad la yaabto haddii lagu yidhaahdo waddankaasi waa Muslim. Taana ay kaaga yaab badnaato haddaad ogaato Muslimiinta waddankaa ku nool in ay barkood dowladda ka soo horjeedkeeda u tukadaan. Waxaa lagu magacaabaa Jamhuuriyadda Suriname, waddan madax bannaan oo dhaca waqooyiga qaaradda Ameerikada Koonfureed. Bariga waxay xuduud kala leedahay waddanka French Guiana, galbeedkana Guyana, koonfurtana Baraasiil, halka ay waqooyiga Afrika ku hayso badweynta Atlantikada. Dadkeedu tir ahaan waxay dhan yihiin ku dhowaad nus milyan, bad ahaanna waxay ku fadhidaa 165,000 oo mitir oo iskuweer. Marka aan sidaa ku leeyahay, waa dowlad u dhiganta dowladda Tunis oo kale. Waxaa gumaysan jiray 3 xulafo: Ingiriiska, Faransiiska iyo Hollandeeska ugu weynaa ama watay qorshaha gumaysi. Waxa uu isku dayay Ingiriisku inuu keligii gumaysto, Faransiiskuna sidoo kale, laakiin Hollandeesku waxa uu ku beddeshay dhul kale oo gumaysi wada kala dhexeeyay iyaga. Sidaana waxay gaar ugu noqotay Hollandeeska oo waqti dhow gumaysan jiray, iyadoo bad ahaan ka weyn 4 laab. Dadka ugu badan ee degaa asal ahaan waxay ka soo jeedaan Bakistaan iyo Hindi. Waxaa ku soo xiga Creole oo ciyaalka iska dhaleen dumar madow iyo niman cadcad. Waxaa ku xiga Afrikaanka loo yaqaano Maroon iyo xoogaa yaro dadkii waddanka loogu yimi. Sababta ay ku timi kala duwanaanshaha jinsiyadahaasi waxa ay tahay Hollandiyiintu markii ay qabsadeen waddankaas waxay ka dhigteen dhul beereed. Marka ay beer noqotana waxaa loo baahan yahay shaqaale. Dadka aynu soo sheegnayna waa dadkeedii sida Afrikaanta madow, Hindida, Bakistaaniyiinta, Indoneesiyaanka, Chinaha. Taasina waxay sabab u noqotay inay ku kala nooc noqdaan diinta, jinsiyadda iyo midabkaba. Sidoo kale waxaa lagu tiriyaa dowladaha lagaga dhaqmo diimaha badan waxaa degan Muslimiin, Hinduusiyiin, Masiixiyiin iyo xoogaa Buudiyiin ah. 1975kii waxay gooni uga go'day Hollandeeskii gumaysanayay. Xoogaa waxa waa waddanku waddan dimuqraadi ah ilaa uu ka qabsaday dalka xukuumad militari oo uu hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray Boutros, kaasoo ka dhigay waddankii waddan ay ku loolantamayaan xukuumado badan iyo militari kala duwan. Qarniyadii la soo dhaafay waxaa waddanka ku soo badanayay Muslimiinta, iyadoo ay tiradu kor uga soo kacday 20% gaadhayna 35%. Marka lagu daro sababo kale oo kordhiyay sida tirada dadka soo dhalanaya oo kordhay iyo Afrikaanta oo qaadatay diinta Islaamka. Sidaana waxay ka mid noqotay 1996kii xubin ka mid ah dowladaha loogu yeedho abaabulka iskaashatada Islaamka. Islaamnimada ka jirta waddankaasi way ka duwan tahay Islaamnimada laga dhaqmo waddamada Islaamka, maxaa yeelay Muslimiinta ku nooli waxay u qaybsan yihiin firqado. Taa waxay kala mid yihiin Muslimiinta kale. Firqo walibana firqado kale ayaa ka farcama, qaybna qayb la heshiis ma aha. Halka hogaamiye diineed ka taliya ay gaadheen 6,000 oo hogaamiye. Marar badan waxaa la isku dayay in la mideeyo, laakiin dagaal iyo kala qaybsanaanta u dhaxeeya firqadahaas ayaa suurtagelin waayay. Ku tusaaleyso qabiilada Soomaaliyeed xaalkooda. Saas oo tahay, firqad waliba waxay leedahay qaab cibaadad u gaar ah. Sababta keentay waxay tahay bulshada ku xeeran oo dhami waxaa diin u ah Masiixiyad. Arrintii xiisaha lahayd in qaarkood ay ka soo horjeedka Kacbada u tukadaan ayaa ah Indoneesiyaanka ku nool waddankaasi. Marka ay waddankooda joogaan waxa ay u tukadaan galbeedka marka loo eego Kacbadu inay kaga beegmayso waddankooda jihadaas. Kadib markii bartaa loo soo raray, sidoodii ayay u tukadaan ilaa iyo hadda, iyadoo ay tahay jihada bari. qiblada saxda ah ee ku beegan Kacbada marka la joogo waddanka Suriname.